بسم الله الرحمن الرحيم بلشده Soomaaliya meel kasta ay joogaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh saacadan aan idin hadlayo dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho waxa ka socda dhacdo ugub ah weerar gardarro ah amba gaadmo ah oo aan ku aan ka digi jirnay ayaa farmaajo waxa uu ku qaaday hoteelka ay deganaayeen madaxweynayaashii hore oo iyo Shariif Xasan Sheekh Aadan oo gudoomiyihii hore baarlamaanka ah oo u dhow goobta mudaharaadka nabadda ah ay ka dhici lahaayeen ciidamadii dawladda qalabkii dawladda waxaa loo adeegsaday dadkii ciidanka wax ka dhisay qalabka wax ka lahaa ciidamada xukumi jiray in looga faa'iideysto oo weerar lagu qaado waxaan idin xaqiijinaa waa ay bad qabaan waa nabad qabaan laakiin nolosha ilaahay baa baxsho qorshaha farmaajo ma ahayn labadaas inay saacadan nool yihiin hore ayaan u sheegay in gaadmadii 4 sano uu soo waday uu joojiyo oo uu kala fahmo mudaharaadka nabadda ah iyo cadawga bulshada iyo dadka iyo xataa dawladnimada laga celinayo waa ka xunahay waxaan ugu baaqaynaa mar kale taliyayaasha ciidamada wasiirka amniga wasiirka gaashaandhigga ra'iisul wasaaraha in gardarrada iyo gacanka hadalka iyo weerarka iyo isku dayga dilka la joojiyo mudaharaadka nabad ah laga hor wareego dadku ay sheegtaan waxa ay aaminsan yihiin waxa la yaab leh in dawlad beesha caalamku ay baagab garaynayso oo iska celin karin cadawga ay la dirirayso oo shabaab ah oo 24 saac hareeraheeda la joogo xafiisyadeeda dhex taagan yahay inay u heelan tahay horinta dagaal sokeeye iyo dil iyo mar kasto inay isku daydo cidda is qabtaan ciidamada qaranka ka faa'iideysanaysa inay disho beesha caalamkuna aanay arrinkaa waxba ka qabanayn runtii waa dhacdo ugub ah annagu haddaan nahay murashaxiinta soomaalida foolhoraadkeeda ah farmaajona uu weerarka ku soo qaaday weerarka aanu ku soo qaadin oo isku day inuu dilo waxaan leenahay adagu dad badan oo Soomaaliya oo dil gaadmo ah ku sameeyay annaga waana gaadi karaa amba waana dili karaa laakiin ama cabsin karin jidka waan ku soconaynaa Soomaaliya waxaan rabnaa inay xor ahaato ay xalaal ahaato ay dimuqraadi ahaato oo dadkeeda ay isla socdaan oo aan la isdilin oo asaga aan la dilin oo asaga aan wax dilin dawladnimadii socon jirtay baa soconaysa iyadoo inta ka sii hagaagsan bay soconaysaa asaga ku soo dhaxdhumay inuu wax ku dhex dilana u soo galay cunsurka qaldana qaranka Soomaaliya ka baxay waa mahadsantiin